Maayirka cusub ee degmada Boorama Mudane Maxamed Axmed Warsame iyo ku-xigeenkiisa Mudane Yaasiin Tahe Aadan oo ay weheliyaan xubno ka tirsan aqalka golaha deegaanka degmada Boorama ayaa maanta kormeer ku soo maray sayladda xoolaha iyo sidoo kale sariimadaha xaafadaha Xalane iyo Axmed Gurey iyo sidoo kale kawaanka lagu qalo xoolaha nool oo ay gacanta ku hayso dowladda hoose ee degmada Boorama waxaana warbixin ay ka dhageysteen hooyooyinka ku ganacsada goobahani waxaana markuu soo dhammaaday kormeerka xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay duqa cusub ee degmada Boorama Mudane Maxamed Axmed Warsame waxaana uu yidhi maanta waxaanu kormeer ku soo marnay xarumaha adeegyada dowladda hoose tooska ula xiriira oo ay ka tahay kawaanka gowraca kaasi oo aanu booqanay kawaanka gowracu sida uu shaqeeyo oo dowladda hoose gacanta ku hayso nidaamka wixii baahiyaad ka jira iyo sidii aanu wax ula qaban lahayn waxna u wada qabsan lahayn waxa kale oo booqanay labada sariimadood ee Xalane iyo Axmed Gurey waxaan rajaynaynaa inaanu booqano sariimadaha kale labada xarumood waxaanu kula soo kulanay bulshada waxay noo sheegeen baahidoodii waxaanu nood gareysanay ama ku darsanaynaa qorshahayaga sida u kala sareeyaan waayo ooda dhacmeed sida u kala sareeyaan baa loo kala guraa bulshadu baahi badan bay qabtaa ididiilay qabtaa filashay qabaan waxaan doonaynaa inaanu noqono biidmillaahi kuwii ka jawaaba baahiyaha bulshadu ay qabaan waxaan booqanay sayladda xoolaha taasi oo ay bulshadu doonayaan in wax lagala qabto sayladda xooluhu waxa weeyaan waa meel ka mid ah dekadaha ay leedahay degmada Boorama ay wax ka soo galaan maadaama cashuur bixiyaal ay yihiin waxaan doonaynaa in cashuurtooda aan ku celino baahiyaha aasaasiga ay sheegteen waxa ka mid ah biyaha waxa ka mid ah inay hadh helaan waxa ka mid ah inay helaan xayndaabkii waxaan rajaynaynaa inaan ku darsano sida ugu dhaqsaha badan leh wixii aan degdeg u qaban karnana aan u qabanno wixii kalena qorshahayaga aan ku darsano waxa kale oo aan soo booqanay ciidanka dabdamiska oo kaalin weyn kaga jira khataraha ka yimaada dabka iyo waxyaabaha kale ee la halmaala hore istaageersi baa nooga dhaxeeyay iminkana waxaan doonaynaa inaan halkii ka sii amba qaadno oo ka sii horumarino bulshada waxaan ugu ballan qaadaynaa inaanu diyaar u nahay inaanu la shaqeyno oo cashuurtooda aan wax ugu qabanno iyagana waxaan ka filaynaa inayna barbar istaagaan oo garab istaagaan horumarka mar labaadna ummadda waxaan uga baahannahay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga iyo cid kasta oo amniga degmadeena ka shaqeynaysa dhinaca kalena Mudane Maxamed Axmed Warsame duqa cusub ee degmada Boorama ayaa waxa uu ku waramay kulan uu maalintii shalay uu la yeeshay shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Boorama iyo kala fadhiga ugu horeeyay ay yeeshaan mudanayaasha aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorama inaanu yeelanay shirkii xildhibaanada ee ugu horeeyay kaasi oo aanu ku diyaarinay ama isku qaybinay laba guddi hoosaad soo samaysa istaraatiijiyadii aanu ku howlgeli lahayn 6 bilood oo soo socota daraasadna ku soo samaysa xarunta dowladda hoose iyo guddi kale oo aanu ugu talagalnay inay soo diyaariyaan xeer hoosaadkii iyo nidaamkii uu ku shaqeyn lahaa golaha deegaanka ee degmada Boorama ee cusub markaan intaa ka imaado waxaan noo qabsoomay inaan shir weynihii shaqaalaha yeelano shalay oo bisha ay ahayd 3 bisha taasi oo dhammaan shaqaale weynaha dowladda hoose ka shaqeeya aanu dhageysanay baahiyihii ka jiray degmada iyo sidii ay hawluhu ahaan jireen kadibna u ballan qaadnay siinayna awaamiirta shaqada iyo kala dambeynta iyo waajibaadka laga rabo shaqaalaha iyo waajibaadka laga rabo mas'uuliyiinta dowladda hoose aan kow ka ahay anigoo meeyarkii degmada ah waxaan bilownay nadiifintii xarunta dhexdeeda waxa jirtay qashin badan iyo qalab fara badan oo laga qaaday oo yaallay xarunta dhexdeeda shalay toole waxaan dhammaan shaqaalaha intii aan hawl maalmeedka aanay u bixin aan sameynay in qashinkaasi aan ka gurno taasina waxay keenaysaa markaad gurigaaga nadiifiso ama xarunta aad ku shaqeynayso ayaad ummadana wax u qaban kartaa ama aad nadiifin kartaa kulli waxaan sameyn doonaa qorshayaal campaign oo degmada lagu nadiifin doono laakiin tii xarunta waan bilownay wayna socon doontaa sabti walbana waxaan isku dayaynaa inaan joogtayno annaga oo shaqaalaha kaashanayna Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boorama.